laayay waa ka xumahay dhalinyarada la laayay waa ka xumahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa caadi iska ah in ay jiraan dad oo ninka odayga ah oo gacanta ku haysto ay jooga magaalada xilligiisa dhamaaday oo uu ku laayo dadka waxa jooga ninka maanta dilay Bukhari waxaan ognahay inuu ka horreeyay dilay oo uu maartay odayaal oo qaar waalidkiisa qaar mas'uuliyiin ah inuu intuu afka u duubto oo dilo yaan ognahay laakiin yawm min al-ayyam waa laga xisaabin doonaa haddii alla idmo xaqiiqo waxa ah qofkii fargeysta asagoo ku gaar noqon doona haddii alla idmo inta ka bacdi iyo tacsida ka bacdi waxaan leeyahay ciidamada iyo hay'adaha amniga ee Jubbaland أنا وحنا بالله دمانتي الحنبليو حن رجينيا إن الأبنية السلطان لاين تدتك الصوماليات اللي دين أليكسن هنا تكد يسال تعسان قاعد سنة يا تدتك الصوماليات هيا خبك ودان هيا إلى لسان هيا خواريج هي شادين تكلم كإلى لسان مرك هيا اللي دين أليكسن الله بحلا لا ده اللي يراد هذا ينقطع هلا لا إن إذا أقولانين بان دين سوتشينيا حكم كاس هذا لما عمينا وحنبيه لها wixii aad dadkan yeeli kartay waad yeeshay inaad dhalinyarada yar yar ee mustaqbalkooda ifaya laynta inaad ka daysana oo ku soo jeedin lahaa inta kale waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka reer Jubbaland waxa u diyaar garoodaan isbedelka cusub inaad ka qayb qaadataan in maaragtay horumarka iyo amniga iyo waxbarashada iyo laga shaqeeyo oo dadku ku foofo noloshooda oo dadku u diyaar garoodaan inay isbedel dhab ah la yimaadaan oo aan ahayn kii 13 sano geedka hoos fadhiyaan ahayn inay la yimaadaan baan rajaynayaa annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaanu tusno ama aan tooshka ugu qabanno iftiinka iyo horumarka iyo barwaaqada iyo amniga inaan tooshka ugu qabanno shacabka Soomaaliyeed baan ballan qaadaynaa iyo midka reer Jubbaland aad iyo aad baa u mahadsantihiin haddii alla idmo waanu dhihi doonaa barnaamijka siyaasiga aan soo bandhigi doonaa insha Allah aad iyo aad baan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh